Barsaabka gobolka Saaxil iyo maarayaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera ayaa waxay maanta kormeer ku tageen ceelasha ay biyuhu uga yimaadaan magaalada Berbera iyo macjarka xoolaha. Ugu horeyntii isagu waxa halkaasi ka hadlay maarayaha wakaalada biyaha Salmaan Cabdi Lawliye waxaanu ka warbixiyay mashaariicda sanadkan gudihiisa ay sameeyeen iyo gabaabsiga biyaha ee xilligan xagaaga ah oo ay biyuhu aad u yaraadaan maadaama lagu jiro waqti aad u kulul oo ceelashu biyaha ay yareeyaan. xaaladda gobolka ama degmada Berbera biyaheedu sida yihiin waqtigan runtii waa waqtiyada ugu adag tahay magaalada Berbera waxa iskala waqtiga kulaylka iyo waqtiga muusinka xoolaha oo ku soo hagaaga labaduba kulayle runtii waxa jira oo kale iyadana maanta koritaanka magaalada Berbera isaguna aad u koreeya mashaariic horumarineed oo gobolka ka socda taasuna inta badan waxay saameyn ku yeelataa biyihii marka hore waqtiyada qabowga ama jilaalka ay magaaladu cabi jirtay gudoomiye waxaan aad u jecelahay inaanu si aanu inaga bulshadu aynu isku dareen uga noqono inaanu maanta halkan waxaan u joognaa inaynu aragno mashaariicda socda sanadkan gudihiisa waxaan qodnay 2 ceel kii aynu maalintii hore furnay maalintii rabadaantii aynu xariga ka jarnay iyo kan imika aynu aragnay oo isaguna kii labaad noqonaya 2 ceel oo kale imika riigagii iyo qalabkan aynu arkayna waxay sugayaan imika 2 meelood oo kale aanu istaagnay waxay sugayaan iyaguna insha Allah tacaala inaynu iyaguna labada ceel ee kalena inaynu qodno cabashadu way jiraysaa adduunka oo dhamina wax maalin dhamaada ma jiraan laakiin waxaad moodaa baahida jirta iyo awoodda wakaaladu had iyo jeer inay kala badan yihiin qorshaha iyagu siduu yahay mar walba waxa naga go'an inaan raali gelino oo baahida taagan aanu ka jawaabno bulshadayada iyo gobolka degmada guud ahaan hadday tahay magaalada gudaheeda hadday tahay inta ku xeeran wixii awoodiyada insha Allah tacaala inaanu mar walba waxaan diyaar u nahay inaanu baahida ka jawaabno waxa kaloo iyaduna runtii farxadno ah waxaan joogay baan malanay wakaalada 3 xagaayo ugu dambeeyay may dhicin wali cabasho biyood oo wada saameysa gobolka ama degmada magaalada Berbera waxaanu qabanay waxyaabo badan oo maanta aynu oran karno marka loo eego qiyaas ahaan capacity-ga wakaalada iyo marka isku eegto iyo xaaladdu sidii tahay haday beebkii weynaaye gudaha aynu ka bedelay tahay haday ceelasha la qoday tahay haday dhismaha tahay iyo dayactirka inta gudaheeda oo extensionkii biyaha ku sameeyno iyo beebkan weyna magaalada gudaheeda isaguna biyaha geeya marka laga tago kan dibadda oo isaguna masaafo dhan oo 30 kilomitir ku dhow ilaa 720 kilomitir noqonaya sayidadkan gudoomiye waa sayidka ugu weyn ee maanta joogna halkan ay 3 ceel ku kordhinayna midna dhamaaday aynu ku xireyno isla wiigan gudihiisa labana qodaalkooda aynu bilaabayno marka waxay noqonayaan 4 ceel inay sanadkan ku soo kordhi doona wakaalada biyaha Berbera gaar ahaan sayidkan aynu joogno Faradeera bulshada reer Berbera had iyo jeer waxaan jecelahay inaan loo wadaagno dareenka ah waqtiyadan oo kale had iyo jeer magaalada waxaan ku wacyi gelinaa inay sameeyaan ay sameystaan kaydad biyuhu way maqnaan karaan beebabku way jabaan maxaa la yiraahdaa magaaladu kayd ma laha biyaha u sii haynaya marka had iyo jeer waxaan ku wacyi gelinaa biyo la'aan ma jirto laakiin kayd la'aan ba jirta haddii aan biyaha la kaydsanin oo aanad weel ku shubanin mar walba ma soconayso awooddeena markaad eegto inaad biyo hesho kugu filan waayo beebka iyo wuxuu dhaxeeya qasabada guriga ku taala ma jiraan marka waxaanu aad u jecelahay dadku inaanay ka dhigaadaygin maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 wixii ay isticmaali lahaayeen inay kaydsadaan oo ay dhaansadaan xagaagii waxaanu isleeyahay intii badnayd way inaga dhacaysaa imka dhawaan 15 maalmood ee soo socda ugu adag hadii Allah uu dil qadaro inaynu waqtigan muusinka xoolaha iyo kulaylkan iyo dabaysha iyo ay iswada gelayaan baan isleenahay laakiin inta wixii ka dambeeya waxaynu rajeynaynaa insha Allah tacaala in wax walba sideedii ku soo noqdaan sidoo kale isagu waxa halkaasi ka hadlay barsaabka gobolka Saaxil waxaanu ku amaanay wakaalada biyaha tacabka badan ee galiyeen wax soo saarka biyaha Ilaahay baa mahad leh marka labaad aan runtii ka mahad celinayaa kormeerkeenan aan ku soo marnay ceelasha kuwa cusub iyo kuwii hore iyo beebabkii horeba waxaan uga mahad celinayaa wakaalada biyaha iyo wasaaradda iska kaashaday inay shaqo joogtaa had iyo jeer ku jiraan sidii ay
beebka jaba u bedeli lahaayeen ay ku cusub u gelin lahaayeen ceelasha oo xilligan oo aynu ku jirno xilligii kulana sidii ay ceelasha u kordhin lahaayeen welina shaqadii socoto oo maanta riigan meesha taagan uu kusii dari doono ceelal kale runtii aad baan uga mahad celinayaa inay xilis ka saaraan bulshada reer Berbera kuleelkaa inaanay biyo la'aani dhicin halganka loogu jiro waxaa kaloon bulshada ku wacyigelin lahaa inay iyaguna xaggooda ka dadaalaanoo biyo la'aani ma jirteen laakiin weel la'aan baa jiri karta qof waliba intuu wax kaydsan karo ilaan beebaaba xataa inaga jabi karee inuu qofku lahaado kaydu biyuhu ku jiraan oo hadday maanta ilaahay naguma keena u beeb jabo inta la wado ma sugi karaan cidina ma sugi karto qofku laakiin waa inuu ahaadaa inuu meel wax ugu jiraan iyagana intaasaan ugu wacyigelin lahaa runtii waxa weeyaan dadaal fiican bay muujiyeen wakaaladda biyaha ee Berbera waxaanu soo aragnay ee socda iyo intii hore u socotay beryahan oo dhanba hawl adag bay haysatay waan la socday wataan doonaya bal halkay marayso saaka inaan xuquuqaal u soo noqdo xamse jaamaciyare telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera